arday macallinkii waalidkaba duca ka soomistay oo quraanku maanka u degayay maxaba loo saaray oo maca akhlaaq iyo suluk sharaf iyo musle ومنزل كمقدس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصول هذا 10 كيكوبات refraction of light ومع التجويد إنه حفظي مولاك أيضا لبعض إليسكا 10 كان واحد وكسب سنة سيدا الريوان كأركسان وحلوه يقان قلوعسان كإليسكا أما refraction of light refraction وقلوعسان كويمة دا light كا waxaan hore u soo aragnay lightku inaanu weecanin ee uu socdo straight line laakiin marka uu medium ka uu dhex marayo ka gudbo ee uu medium labaad u gudbo hadii labada medium ay kala cufnaan duwan yihiin waxa ku yimaada inuu wadadii ka bayro oo dhinac kale ama jihada inuu bedelo taasoo loo yaqaan refraction of light waxaynu darsigan insha Allah ku falanqeyn doonaa xeerka qalloocsanka ama law of refraction. Okay, rays of light move in a straight line. Falaaraha ilaysku toos bay u socdaan. Sida macruufka weeye, falaaraha ilaysku waxay u socdaan toos. Waxaana loo yaqaanaa runtii rectilinear. Waxaanu garanaynaa haddii lightku uu meel ka soo baxo, falaaraha lightku inay straight u socdaan oo aanay weecad lahayn ama iskood inaanay iyagu u weecanin ilaa ay soo timaado mooyaane. If the rays of light meet a transparent medium, haddii falaaraha lightku haddaba ay la kulmaan transparent medium transparent medium waxaa la yidhahdaa meesha lightku uu dhex marayo sida hawada ama hadduu qurro dhex marayo ama hadduu biyo dhex marayo meesha markaa lightku uu dhex marayo ee uu ku dhex gudbayo ayaa la yidhahdaa medium. Marka mediumku waxaa laga yaabaa inay noqoto mid transparent ama mid translucent ama mid opaque hadduu mediumku yahay transparent waa meel lightku uu ka dhex bixi karayo. Translucentna qayb ahaan lightku badhna way joojisaa badhna wuu ka dhex baxaa. Shayga opaque mediumkuna waa meel waa medium aan lightkuba macnaha waa mugudbiyun baynu odhan karnaa aanu ilayska ka dhex bixi karaynin. Marka haddii falaaraha lightku meet a transparent medium ay la kulmaan medium transparent they are bent waa la qalloociyaa markaa siday u soconayaan ee u dhex marayaan hawada hadday la kulmaan meel transparent oo ay ka dhex dusi karayaan marka ay mediumkii hore ka soo baxaan ee ay u soo gudbayaan mediumka labaad waxa ku imanaya qalloocsan ama bending baa ku imanaya. Okay, kaasana la yiraahdaa refraction. Haddaba refractionka lagu sheegayaa is the bending of light waa qalloocsanka ku yimaada ilayska when it goes from one transparent medium to another marka uu iskaga soo gudbo medium transparent ee uu soo gudbo medium labaad. Laba medium markuu iskaga soo gudbo medium runtii waa singular jamac wuxuu noqonayaa media. marka lightku uu ka soo gudbo medium transparent ee uu soo gudbo medium kale oo iyadna transparent inta uu labada medium u kala gudbayo ayaa waxa ku yimaada qalloocsan kaas loo yaqaan refraction. Labada medium tusaale waxay noqon karaan from air to glass inuu lightku ka soo gudbo hawada oo soo dhex maray glass oo qurradiya. Marka qurraduna waa medium airna waa medium. Labada medium macnaha waa laba meelood oo lightka gudbin kara marka ay yihiin transparent. Marka labada meelood marka lightku isugu gudbiyo waxa ku dhaca qalloocsan ama bending kaas loo yaqaan marka refraction. Okay, during refraction inta lagu guda jiro qalloocsanka ilayska direction of light changes. Jihada iftiinku way isbedeshaa jihada ilaysku way isbedeshaa oo waa kan qalloocsanka ku dhacaya. Speed of light change waxa kale isbedela xawaaraha lightku ku soconayaana wuu isbedelayaa oo qalloocsan mu yimaadeen haddaanu xawaaruhu isbedelayn. In less dense mediumadu isku cufnaan maaha meelaha qaar mediumku aad bay cufnaan badan. Tusaale kale hawada markuu lightku dhex marayo air markuu dhex marayo waa medium cufnaan yar baa la yiraahdaa. Laakiin air hawada laftarkeedu hadday ceeriyaan iyo dhidi iyo wax jiraan marka density ayaa badanaya oo waxay yeelanaysaa density. Marna waxay noqonaysaa denser medium marna waxay noqonaysaa less dense medium. Isku mid ma aha air markuu lightku dhex marayo iyo markuu biyo dhex marayo iyo markuu qurrad ama glass dhex marayo waa media kala wada cufnaan duwan. Medium walba waxay ku xiran tahay speedka uu ku dhex maraya waxay ku xiran tahay cufnaanteeda ay ku xiran tahay. Guud ahaan in less dense mediumka cufnaanta yar leh example air tusaale sida hawada oo kale light travels fast lightku ama ilaysku uu dheereeyaa fast buu socdaa xawaare dheereynaya ayuu ku socdaa.
in denser medium لكن medium كعفنانتا بدن له example glass sida qurrado kale markuu light ku dhex marayo light travels slow light ku uu gaabiya socodkii buu gaabinayaa oo air buu soconayaa okay waxaan soo qaadanay demonstration ama tusmo aynu ku muujinno macnaha sida light ka qalloocsan kuugu dhaco waa tusmaad maalin walba aragto haddaad u fiirsato laakiin aad xaqiijin karto in light kaas qalloocsan uu ku dhaco bal sawirkan haddaad u fiirso meeshan waxa yaala waa weel ama waa kubaayad aan idhaahdo waa glass ay biyo ku jiraan waxa dhex taala waa muqaacad ama qaadabahan idhaahdo dabcan sida aad arkayso biyuhu meesha ay ku joogaan way ku muuqataa muqaacadu inta biyaha marka muqaacada biyaha la dhex geliyo halka biyaha ay ka gasho waxaad moodaa inay ka kala jaban tahay waana runtii halka u dhaxaysa hawada iyo biyaha qaybta sarana airun bay ku dhex jirtaa qaybta hoosena waxa ku dhex jirtaa biyihii marka maadaama oo marka aynu shayga arkayno light uu ka imanayo waayo isaga markuu iftiin ku dhaco iftiinka ku dhacay ba adiga ku soo noqonaya oo indhaha soo galaya hadaba lightki marka hore biyuhu soo dhex maraya kadibna hawadu soo maraya marka laba meediyo iskaga gudbaya ka bacdi marka waxa dareemaysaa qalloocsan baad arkaysaa waxaanad moodaa halka inay ka kala jaban tahay oo kale ayaad moodaa waana qalloocsan runtii waxana sababay kala duwanaanshaha labada meediyo ee lightku iskaga gudbayo waa air iyo glass dip a spoon into a transparent container dhexgeli muqaacad maxaan ku dhahaa container ama well transparent container waxa loo adeegsadaa wax kasta oo wax qaada intuu doonaba ha laagaade dip a spoon into a transparent container waxa dhexgelisaa muqaacad ama qaado transparent container maxaan ku dhahdaa transparent ah oo lightka uu ka dhex dusayo of clean water oo container kaas ay ku jiraan biyo nadiif ah and view it from the top and the side of the container waxaad ka soo eegtaa xagga sare iyo cirifyada container kaasi ka soo eeg the spoon seems to be bent muqaacada waxay muuqanaysaa inay qalloocsantahay oo ay ka qalloocsantahay at the point where it enters into the water barta biyaha ay ka gasho barta ma biya gudeeda barta xuduuda boundary-ga xuduuda inuu qalloocsan kaga dhacay ayaad moodaa qalloocsanka ama refraction kuna hadii jeer wuxuu ka dhacaa xuduuda u dhaxaysa labada meediya ay awlaadku isaga gudbayo halkaas xuduuda u dhaxaysa ayuu hadii jeer qalloocsan kuna ka dhacaaba law of refraction bal hadaynu si toos ah u galno xeerka refractionka ama xeerarka refractionka aynu bilowno xeerka koobaad wuxuu odhanayaa a ray of light is bent towards the normal falaad ama ray of light is bent towards the normal waxa loo qalloociyaa xagga normalka when it enters an optically denser medium marka falaadaasi ay soo gasho medium cufnaan badan medium aragti ahaan optically waa arag ahaan u cufnaan badan waliba mediumka ay ka soo gasho at an angle dhinac ama angle ay ka soo gasho xagal ay ka soo gasho tusaale ahaan mediumka ay soo galaysaa waa markay ka timaado tusaale ahaan oo kale air ay soo gasho glass air way cufnaan yaray waxa soo gashay glass oo cufnaan badan waxa lagu yiri falaada ilayska waa la qalloociyaa waxa loo qalloociyaa xagga normalka marka ay soo gasho aragti ahaan medium cufnaan badan leh denser medium cufnaan badan waliba ay ka soo gasho at an angle baa lagu yiri xagal ay kaga soo dhacdo tusaale ahaan lightku waa markuu iskaga gudbo from air to glass uu ka yimaado dhinaca hawada uu soo galo qurrada aynu muujino haddaynu idhaahno matalan falaadaasi this is a ray of light hawadii marka hore dhex socotay oo waatana waa air waxay soo gashay glass qurraday soo gashay toos ugumay soo dhicina angle ama xagal bay falaadani kaga soo dhacday maxaan ku dhahdaa qurradii marka halka ay marayso labada meediya u dhaxaysa ama xuduuda labada meediya u dhaxaysa horta waxa weeyaan air iyo glass waxa cufnaan badan aragti ahaan marka laga hadlayo air xagga aragga markaan leenahay macnaha waa meesha lightku dheeraynayo mediumka lightku uu dheeraynayo mediumka uu gaabinayo mediumka transparentka iyo ka transparency-giisa ay waxay weheliyaan oo aan transparentka u sii ahayn hawadu inta badan waa 100% transparent marka aan ceeriyaan iyo dhidi iyo wax jirin waxa weeyaan lightku aad buu isaga dhex socdaa marka waxay ku dhowdahay vacuumka oo kale ay ku dhowdahay glassna midab bay yar leedahay wala waa cadaan ba haday doonto haba ahaato haddana laakiin transparency-ga hawada ma gaari karto way kala cufnaan badan yihiin aragti ahaan marka lightku markuu xagal kaga soo dhaco waxa ku dhacaya qalloocsan dibeeto waxa la samaystaa line xuduuda u dhaxaysa labada meediyo si qumaatiya loogu taago line kaas waxa la yiraahdaa normal line waa imaginary line xaqiiqa ma aha waa line khiyaala
oo la doonayo in wax lagu kala saaro line-kaasi eeg haddii halka xuduudaasi ama line-kaasi uu yahay surface-ka ama dusha sare ee quruuradda waana xuduudda u dhaxaysa hawada iyo quruuradii tusaale ahaan oo kale line-kani qumaati buu isugu taagayaa marka maadaama qumaati isugu taagayo 90 degree la sameynayo surface-ka dabcan fallaadhi rays of light-kii kusoo dhacday maxaan ku dhahdaye quruuradda dusheedu marka ay kasoo gudubtay hawada quruuradda gasho waxay usoo qalloocsanaysaa xagga line-kana marka la yiraahdo normal waana halkan ka keenay fallaadha light-ku waxay u qalloocsanaysaa xagga normalka marka ay soo gasho optically denser medium kan cufnaanta badan la marka ay soo gasho ayaa xagga normalka u qalloocsanaysaa halkan ka keenay dabcan waa halka dabcan waxay u baahan tahay dhamaantood waxaan meesha inoo wada yaalo bal hadda inaynu wada fasirno okay line fallaadha ama ray of light-ka ugu horeeya soo dhacaya waxa la yiraahdaa incident ray ayaa magac ahaan la oranaya incident ray waa fallaadhi bilowga ahayd ee light-ka fallaadh kasta oo bilowa ama wave kasta oo bilowa bade incident baa la oran jiray okay dabcan marka ay qalloocsan markuu ku dhaco fallaadha qaybta maxaan ku dhahaa denser medium ka dhex socota waxa la oranayaa refracted ray waa fallaadhi qalloocsan ku dhacay okay line-ka qumaatiga ugu taagan surface-kana waxa la oranayaa normal line baa la oranayaa surface-ka ama xuduudda labada u dhaxeeyana waxaynu oranaynaa waa surface or boundary line waa oogadii sare ama dushii sare ee kala qaybinaysa maxaan ku dhahaa glass-ka isla markaana kala qaybinaysa air iyo glass marka waa dushii sare ama waa xuduudii baynu leenahay haddaan sii wadno matalan xagasha ama angalka maxaan ku dhahdaa u dhaxeeya normalka iyo incident ray-ga fallaadha Soomaaliya waxa la yiraahdaa incident ray taana waxa la yiraahdaa refracted ray marka fallaadha incident ray-ga iyo normal line-ka la yiraahdaa normal line-ka xagasha u dhaxaysana waxa la yiraahdaa incident angle ayaa loo yaqaanaa okay xagasha u dhaxaysa normalka iyo line-ka la yiraahdaa refracted ray-gana iyadna waxa la yiraahdaa angle of refraction ama refracted angle baa la oranayaa waa xagashii refraction-ka markasta waxa yara kala weyn maxaan ku dhahdaa marka sidan oo kale ay tahay loo soo qalloociyay xagga normalka light-kii refracted angle-ka uu ka yaraanaya incident angle-kii haddii fallaadhu matalan aan qalloocsan ku dhici lahayn toos bay u socon lahayd straight ay u socon lahayd haddii marka aynu isku eegno wadiiqada ay mari lahayd markay caadiga u socoteen oo qalloocsan ku dhicin iyo halkan imika ay marayso oo ah refracted ray-gu oo ah halkay markii wadadeedii hore ay mari lahayd ay kasoo qalloocatay waxa ka dhex samaysmaya angle baa ka dhex samaysmaya angle-kana waxa la oranayaa angle of deviation baa la oranayaa waa angle-ka ka samaysma marka la eego wadiiqadii hore asalka ahayd ee ay mari lahayd haddii aanu qalloocsan ku dhicin iyo maxaan ku dhahdaayay refracted ray-gu wadiiqadan hadda ay martay marka la isku eego dhexdooda angle-ka ka samaysma baa la oranayaa angle of deviation waxa lagu helaa I minus r macnaha incident angle-ka oo laga jaray refracted angle-ka incident angle-ka I baa loo qorayaa refracted angle-kana waxa loo qorayaa r ayaa loo qorayaa okay when the ray comes out of the glass haddii fallaadho ay kasoo baxdo glasska awal waxaanu arkaynay fallaadho oo dhinaca glasska soo gelaysa haddii laakiin ay kasoo baxdo dhinaca glasska the emerging ray is parallel with the incident ray fallaadha soo baxaysa waxay parallel la tahay ama barbara la noqonaysaa incident ray-ga bal dhacdada iyadna haynu eegno haddii matalan tusaale ahaan oo kale marka hore waxaynu naqaanaa fallaadhu markay ka timaado hawada ay soo gasho glass macnaheedu waxay ka timid denser medium less dense medium waxaanay soo gashay denser medium waxay u soo qalloocsanaysaa dukaasi normalkii iyo xagga normalka towards the normal bay u soo qalloocsanaysaa okay markay dibadda u baxayso haddii matalan line labaad oo normal aan samaysto mar walba normal line-ku wax kale maaha waa line khiyaala oo marka maxaan ku dhahdaayay fallaadho haddii soo gelisay hadday baxaysaba surface-ka ayuunbaa si qumaatiya loogu sawirayaa si xagal quman ama 90 degree ayaa surface-ka loogu sawirayaa dabeeto marka ay dibadda u baxayso macnaheedu markay kasoo baxayso denser medium ay u baxayso less dense mediumna waxay u qalloocsanaysaa way ka away from the normal bay u qalloocsanaysaa isla markaana fallaadha qaybta dibadda u baxday haddii dib u tixraacdo oo aad tixraac dambe ku samayso fallaadha inta emerging ray-gi waa inta dibadda u baxda waa intaasi waxay runtii barbara la tahay fallaadhii hore incident ray-ga ahayd ee meesha soo gashay ayay parallel noqonaysaa
sababtaas aynu niri when the ray comes out of the glass marka falaadhu ay dibadda uga soo baxda galaaska the emerging ray falaadhi dibadda u soo baxday is parallel with the incident ray waxay parallel la tahay ama barbara la tahay falaadhi hore incidentka ahaa falaadhi hore ee incidentka ahayd ayay parallel la tahay okay xeerka qodobka labaad qodobkii hore wuxuu ahaa xasuuso qodobkii koobaad muxuu ahaa muxuu ka hadlayay qodobkii koobaad haddaan ku xasuusiyey wuxuu ahaa falaadho hadday ka timaado medium cufnaan yar oo ay soo gasho medium cufnaan badan waxaa loo qalloocinayaa xagga normalka a ray of light entering into the denser medium is bent towards the normal waxaa loo soo qalloocinayaa xagga normalka qodobka labaadna muxuu ku odhanayaa wuxuu ku odhanayaa a ray of light is bent away from the normal falaadha ilayska waa laga qalloocinayaa line-kii aynu u bixinin normalka when it enters an optically less dense medium marka ay soo gasho medium cufnaan yar marka hore markay medium cufnaan badan soo gasho xagga normalka loo qaloocinayay iminkana markay medium cufnaan yar soo gasho waa laga qalloocinayaa normalka tusaale ahaan oo kale from glass to air markii horena from air to glass bay ahayd iminkana waa from glass to air from glass to air glass way cufnaan badan tahay hadii jeer waxaan tusaale uga soo qaadanaa airna way cufnaan yar tahay bal u fiirso lightku haddii matalan aynu nidhaa laynkaasi waa xuduudda kala qaybisa hawada iyo qururadda wixii ka sarreeyana waa air wixii ka hooseeyana waa qururadii ama waa glasskii falaadhu markaa hadday soo dhex maraso qururadda marka ay u baxayso xagga hawada oo ah meeshii cufnaanta yarayd ama mediumkii cufnaanta yaraa marka ay xagga u baxayso laynkii normalka waa laga qalloocinayaa away from the normal tii hore markaa opposite ku tahay marka had iyo jeer mediumka cufnaanta yar la xagiisa ka imanaysan normalka loo soo qaloocinayay imika oo mediumkii cufnaanta badnaa ay ka soo baxaysana marka ay mediumka cufnaanta badnaa xagiisa u baxdo away from the normal baa loo qaloocinaya marka haddii ray of light falaadha ilayska waa laga qalloocinayaa from the normal line-ka la dhaa normalka waa laga qalloocinayaa when it enters an optically less dense medium marka ay gasho medium cufnaan yar marka ay gasho medium cufnaan yar tusaale from glass to air okay qodobka saddexaad ray traveling along the normal is not refracted falaadha dul soconaysa line-ka la yidhaahdo normalka qalloocsanba kuma dhaco tusaale ahaan oo kale haddii ray of light-ku ay line-ka normalka soo dul marto maba qalloocsanayso ama ray of light hadday surface-ka ugu soo dhacdo si qumaatiya 90 degree wax qalloocsan haba yaraatee kuma dhacayo okay practice question su'aalo practice ah oo casharka la xiriira runtii sawirkaas ay la xiriiraan the figure shows sawirkan wuxuu muujinayaa a ray of light traveling from air to water falaad ka imanaysa hawada oo biyo oo soo gelaysa biyo marka line-kaas kala qaybinayo boundary-ga noqonaya wixii ka sarreeyana waa air wixii ka hooseeyana waa water label the names qor magacyada represented by the letters magacyada hadda u taagan xarfahani waa a to h waad arkaysaa waa a b c d e f g h intaasoo xaraf magacyadooda ayaad qoraysaa waad label garanaysaa okay a maxay u taagantahay a waa angalka ah sida ku muuqata angalkaas muxuu taagayay okay waa angle of incidence waayo wuxuu u dhaxeeyaa incident-rigii iyo normalkii buu u dhaxeeyaa okay b waa angalka ah maxaad odhan lahayd ama maxaad u bixin lahayd angalka okay angalka waxaa la yidhaahdaa angle between incident ray and surface waa angalka u dhaxeeya falaadhii incidentka iyo dee surface-ka line-ka maxaynu idhi surface baa la yidhaha soo mayna odhan wuxuu u dhaxeeyaa markaa incident raygii iyo surface-ka angalka u dhaxeeya weeye marka angle lagu xisaabtamo had iyo jeer maaha ka lagu xisaabtamo waa incident angalka oo isagu u dhaxeeya normalka iyo incident rayga okay c waad arkaysaa iyadna halkay ku taalo waad aragtaa intay u dhaxaysun baad sheegaysaa haddii aanay ahayn angle lagu xisaabtamo okay c iyadna waa angle between normal and surface waa angalka wuxuu u dhaxeeya surface-kii waad arkaysaa iyo line-kii aynu odhanay normalka ayuu angalkaasina u dhaxeeya waa angalka okay d dabcan waa angalka labada meelood u dhaxeeya waad arkaysaa angle laba meelood buu u dhaxeeya labada meelood u dhaxeeya baad ku sheegaysaa d waa angle of refraction waa angalkii macnaha lagu xisaabtamay iyada waa angle lagu xisaabtami karo waayo waa angle of refraction waa dee waa kan waa refractory-ga waad arkaysaa normal line-kii waa ka marka waxa angalka u dhaxeeyana waa angalka la yidhaahdo d okay e waa angalkaasaa ku muuqata
isaguna maaha angle macna leh oo lagu xisaabtamo laakiin wuxuu noqonayaa angle kaasi طبعا waa angle between normal and surface baynu odhanaa waa angle-ka u dhaxeeya line-ka la yiraahdo normalka iyo maxaan ku dhahay surface-ka angle-ka yar u dhaxeeya ayuu noqonayaa waayahay f waa line-ka maxaa la yiraahdaa okay waa incident ray falaadhi incident ka ahayd falaadhi ugu horeysay meesha kusoo dhacaysay way incident ray falaadh walba magaceegana garanaysaa muhiima okay g waa line-kana maxaad oranaysaa okay waa refracted ray waa falaadhi qaloosanka refracted ray way noqonaysaa ugu dambeyn h waa line-ka dheer saadarkas line-ka dheer ba h la yiraahdaa طبعا waa normal line normalki ay noqonaysaa okay su'aasha labaad on the diagram is below sawiranta hoos ku yaala draw normal line waxaad sawiraysaa line-ka normal line-ka koow and label the angle of incidence waxaanad qoraysaa oo aad ku qoraysaa angle of incidence-ka I baad ku qoraysaa angle of refraction kana R baad ku qoraysaa waxaad ku label garanaysaa aad ku qoraysaa angle of incidence-ka I angle of refraction kana R sawirka koobaad normal line-ka xaguu ku sawirmaya xageed ku sawir leedahay adigu waa ka sawirto marka hore ma dhinaca طبعا دوان aragna surface-ki waa ka surface-ki marka surface-ka line-ka perpendicular-ka ku haweyn normal line-ka waa ka angle of incidence-kana halkaas uu noqonaya isagana maxaa la oranayaa ku qor lagu yiri I angle of refraction-kana kan uu noqonaya maxay ku qor baa lagu yiri R baad ku qoraysaa isagana R okay sawirka labaad isagana horta ko maxaad sawiraysaa normal line tolo normal line xaguu ku sawirmaya normal line dabcan waa line-ka perpendicular-ka ku surface-ka imika falaadhu mar haday dhinacan ka soo baxayso angle of incidence-ku kan uu noqonaya this is I kaasad I ku qoraysaa markaa I kaasad ku qoraysaa ka kalena markaa muxuu noqonayaa angle of refraction oo R baad ku qoraysaa